dowladda Soomaaliya ayaa waxa ay sheegtay inay ka jawaabayso cabashadii ka soo yeertay cutubyo ka tirsan ciidamada qalabka sida ee dowladda federaalka Soomaaliya. wasiirka wasaaradda gaashaandhigga ee dowladda federaalka Soomaaliya xildhibaan Xasan Cali Maxamed Amar Dambe oo la hadlayay saraakiil ka tirsan ciidanka xoogga dalka Soomaaliya ayaa waxa uu sheegay in cabashada cutubyo ka tirsan ciidanka xoogga dalka ay soo gaartay taliska wasaaradda gaashaandhigga ee dowladda federaalka Soomaaliya. taliska iyo wasaaradana ay qorsheynayaan sidii cabashadaasi ka soo yeertay cutubyo ka tirsan ciidanka xoogga dalka cabashadooda ay u dhageysan lahaayeen isla markaana loo dhameystiri lahaa diiwaangelin uu tilmaamay inay wado wasaaradda gaashaandhigga ee dowladda federaalka Soomaaliya taa oo lagu tirikoobayo ciidamada qalabka sida ee Soomaaliya. aniga ka wasiir ahaan marnaba raalli kama noqonayo in la durmo shakhsi muwaadin Soomaaliyeed ama ka tirsan ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed ama uusan ka tirsaneyn. sidoo kale ciidanka waajibaadka iyo discipliniska marka laga hadlayo ayagana inay dooraan nidaamka u degsan dowladda. saa adiga ka dhawaajisay qofka tabasho uu yeelan karaa tabashadiisa meesha uu joogo inuu ku tabto waa wuxuu leeyahay taliye qeyb uu leeyahay taliye urur uu leeyahay wuxuu leeyahay taliyaha ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed uu leeyahay ama ay leeyihiin sida xalayba asigu ka dhawaajinayay oo sida sharafta badan qiimaha badan uu la hadlay sidoo kale inay asigu ku xirnaadaan wixii tabashadooda ee nidaam iyo procedure aan marno ee qoraal lagu soo gudbiyo annagana aan u dhagan uglaano arrintooda tabashada wax ka qaban insha Allah ta'ala taasna wax ka shaqeynayna hadii Ilaahay uu raali ka noqdo. maanta wixii la waanin lahaa waana la waaniyay wixii loo sheegay la waana loo sheegay waana kalma marin gacmaha isqabsano. runtii waxaan aaminsanahay wasaaradda gaashaandhigga iyo ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed haday hagaagaan dowladnimada Soomaaliya ka maqan way hagaagtay. waxyaabaha kaliya maanta naga harsan inaan ciidankeena iyo nidaamkiisa systemkiisa samaysano garabkiina nahay insha Allah ta'ala waxaan rajaynaynaa Ilaahay idinkiis inaan inta dhiman aan dhameystirno sabarkii dulqaadka sharciga islaamka nafarayo mas'uuliyadda nafaraysan inaan ilaalino inaan arrinkan hadda aan ku jirnana sida sheekheena uu ka dhawaajiyay arrin siyaasadeed aan la gelinin walama jeedno ujeedo kale in wax la saxo wax saxan oo runtii aan ku wada qani karno oo qof kasta anaga naga mid ah aqoontiisa ku heli karo kan ugu dambeeyay kan ugu horeeyo caafimaadkiisa ku heli karo noloshiisa ku heli karo sharafkiisa karaamadiisa ku heli karo oo kaliya ayaan raadinayna insha Allah ta'ala tawfiiq ayaan soo dardaarmaynaa aad iyo aad u maasantahay sheekheena sida qiimaha badan oo qaayaha badan aan nala hadashayna insha Allah ta'ala wax badan aan ka qaadanay horeyna waa dadaalaynay marka anagoo dadaalka ku jirnana waa sii kordhinaynaa shacabka Soomaaliyeed insha Allah ta'ala taas la wadaagayna ciidamadeena sharafta badan oo runtii dhiigooda iyo dhacaankooda horaya oo waqtigooda qaaliga bixinay iyagana waxa uu sheegaynaa idinka ayda maqanay insha Allah ta'ala waxa la wixii karaankeen idinka ma halaayo wixii tabashaan insha Allah ta'ala taliyaha joogo annaga xalinayna